Assalaamu calaykum. Caawana waxaan arkaynaa farqiga u dhexeeya absolute value iyo related cell reference-ga. Labadaas farqiga u dhexeeya aan arkaynaa. Tusaale, related cell reference-ga aan ku horeynaynaa. Waxaan dooranaynaa cost-ga oo lagu dhaftay exchange-ga. Enter ayaan leenahay. Kadib calaamadda ayaan hoos u soo jeedinaa. Waa kaas uu noo shaqeeyay. Kaas related cell reference baa la yiraahdaa. Waxay ku jiraan seelal isku mid ah oo isku toosan ay ku jiraan saas darteed buu noogu shaqeeyay. Laakiin si absolute uu ku yar duwan yahay. Tusaale, cell reference maadaama ay seelalka isku toosan yihiin uu noo shaqeynaya Excel-ku related cell reference-ga. Imika waxaan arkaynaa absolute value-ga equal to ayaan leenahay. Exchange-ga ayaan ku dhufanay ayaan click leenahay. Waxaan ku dhufanaa times discount-ga ayaan ku dhufanaynaa. qiimuhu noo soo baxay noo soo jeedin ka koobaad kaliya noo shaqeynaa kuwa ka hoosan oo ma shaqeynaya sababtoo ah discount-ga uu ka baxsan yahay cell reference-gan kuma toosno kuma aadana kan kuwan kale aan ku dhufanayno kuma aadan maadaama ku aadanayn iyo ever noogu soo saaray si uu noogu shaqeeyo halkaas discount-gaas iyo iskuma aadana maxaa la yiraahdaa exchange-gan aan isku dhufanay saasuu maxaa la yiraahdaa kuwa kale u shaqeynaa kan wuxuu shaqeeyay toos maadaama aan isku dhufanay si uu noogu shaqeeyo waxaan ka horreysiinaynaa discount-ku ayna 1 buu yeelaa ay1ka aydan ka horreysiinaa calaamadda dollarka 1kana waan ka horreysiinaa calaamadda dollarka enter ayaan leenahay kadib hoos ayaan soo jeedinaa haddii kale ka koobaad uu noo shaqeey kaliya ku dul dhufanaynaa kadib F4 ayaan computer-ka ku dhufanaynaa kadib isaga automatic noogu gelinayo absolute value calaamadeeda kadib saas uu noogu shaqeynayaa kaasna wada shaqeeyay discount-ga waxa ka ugu badan waxa helay kaas 9 iibiyay aad baad mahadsantihiin habeen wanaagsan ayaan rajaynayaa discount-gaas uu idin anfacaya shirkadaha gaar ahaan markay qiimo dhimista sameynayaan aad baad mahadsantihiin habeen wanaagsan